daawad ee dhegeystayaal si walba codkayga soo gaaraya muuqaalkaygana u daawanaysaan aad baad u mahadsantihiin. waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago mid ka mid ah applicationada aad taqaanaan uguna caansan marka la joogo internetka. waa application magaciisa aadan rabin in laydin tilmaamo. waa applicationka aan circle-ka gelin doono adikana aad markaasi arki doontaan. waa applicationkan ila soco wax markii aan markaas idinkaga soo wado. waayahay markana aan galno applicationka gudihiisa aan markaas idin tuso waxa aan idinkaga sido. waayahay ugu horeyn aan soo furo applicationka. markii uu sidatan usoo furmo farxadda hore waxaad ku dhufataa searching-ka meesha wax laga raadiyo kadibna waxaa halkaasi ku qortaa searching-ka. haddii aan ku tusiyo waa dhankaas oo aad u jeedido aadna taqaanaan hadeerna aadan u baahnin in la idiin sheego. halkaas ayaad waxaad ku qortaa abturaad markaa qortidna waxaa kuusoo bixi doono amaba haddaa weysidna waxaad dhammaystirtaa qoraalkan halkan yaala oo aan ula jeedo markaasi التراث المسجل للعلماء السومال. halka ay ku qoran tahay waaye meeshaan u socdo التراث المسجل للعلماء السومال. markay halkaas ku soo baxdo ku dhufso kadibna waxaad arki doontaa indhahaaga ku macalin ahdee waa halkaasaan u soo gashay. waxaa kuu soo bixi doona aniga hadeer waxaa ii socda cashir oo meel laxa ii marayo waan soo degsada cashiradan. waxaa markaasi adigana heli doontaa cashirada aan tago page-ka ugu horeeya markaasi laga helo cashirada dhammaantooda. waayahay ugu horeyn aan tago waatan hadeer la idgeyn. waayahay applicationka marka aad furto waxa uu kuugu soo bixi doonaa insha allahu sidatan soo socota. halkani waxaad ka heli doontaa التراث المسجل للعلماء السومال فهرس الكتاب المهمة علوم القرآن. وكان kadib waxaa markaasi number 2 ku bilaabanaya Sheekh Umar Faaruq rahimahullah, Sheekh Maxamed Cabdi Umar, Sheekh Maxamed Umar Dar, Sheekh Uthman Ali Hassan. sheekhada tiro ma lahan hoosaad u socon doontaa. kadib waxaad markaasi heli doontaa sheekha marka aad ku dhufatay iyo casharadu uu akhriyay. tusaale aniga haddii aan ku dhufto Sheekh Umar Faaruq linkiga hoos yaalan ku dhufanaa. kadib markuu isoo reejiyo waxa uu geyn doonaa Sheekh Umar Faaruq iyo dhammaan kitaabadii uu markaas uu akhriyay. applicationka markii aad gudihiisa gasho ayaad markaasi wax badan ka faa'iidi doontaa insha Allah. mana baahan doontid in kitaab hadda kadib aad u tagto studio kadibna aad ka soo tuurato aad tiraado ito kitaab hebel sheekh hebel isoo duuban. kaliya applicationka Telegram-ka soo gal kadibna التراث المسجل للعلماء السومال ku qor searching-ka kadibna ku dhufsa kadibna kitaabada sheekhyada ku soo bixi doona 40 iyo dhowr sheekh waay. ku dhufsa sheekha markaasi aad markaasi jeceshahay kadibna waxa culumtu uu akhriyay faniyada kala duwan ee markaasi uu akhriyay ka door kadibna halkaas kala soco maxaakama. Allahu akbar. aad ma santiin intaas ayaan markaa idin jeclaystay. wixii aad fahmi weysaana numberkayga waa taqaanaan sidaan hore idinku sheegay. hadeerna commentigan idin dhigaya waliba qaybta description-ka ayaan idin dhigaya. khayr badan oo billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa barakatuh.